حاجة الله يسوق لنا. بسم الله الحمد لله والسلام لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. maanta waxaan ku joognaa meel u dhaxaysa deegaanada labada beelood beesha Habarjeclo iyo beesha Dhulbahante waa habaryahesha iyo meesha la yiraahdo fadhi dadweynaha joognaa. waxaanu halkan kala wareegnay oo aanu mahadnaq aad iyo aad u ballaaran u soo jeedinaynaa odayaasha uu hogaaminayo Chief Caaqil Maxamed Deeq Ali Duus Axmed Ali Duus uu hogaaminayo aadan ayaanu maanta halkan kala wareegnay laba nin oo dhaawaca oo heeraha la yihiin nina waxa weeye labada nin oo laba nin oo Habarjeclo oo Muuse Abukara nina waa nin biciidaa nina waa nin geeriyoodaysa. labadaa nin oo ay soo badbaadiyeen waxay iska saareen oo dhaawacna ah oo ay odayaashu og yihiin ayaanu maanta halkanka kala wareegnay. mahad ballaaran baanu u naqaynaa waayeelka Chief Caaqilka iyo odayaasha garaadada oo arrintaa aad iyo aad xil iska saaray waddo dheer la soo maray soo badbaadiyey meel adag la soo maray. waxaanu leenahay mahad ballaaran aan la soo qabi karin baanu idiin naqaynaa. dadkan waa dad isku mid ah oo shaydaan ka dhex shaqeeyey. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu colaadda soconaysa ee guritirka ah ee lagu idlaaday lagu barakacay ee lagu jabay ilaahay wuxuu ka baryaa inuu joojiyo. baaq kalena aan kaga faa'iidaysanayo halkan baaq kale waxaan kaga faa'iidaysanaya haddii ay islaam tihiin oo allihiin aan leeyahay ha la joojiyo colaadda xabad joojin ha la sameeyo ciidamada ha la kala dujiyo xabad joojin ha la sameeyo.